maanta mar kale dagaal culus ayaa dib uga qarxay deegaanka Dawcaaley oo ka tirsan degmada Xarshin gobolka Faafan dowladda deegaanka Soomaalida maalmihii ugu dambeeyayba deegaankaasi hadal hayntiisu way taagneyd kadib markii maleeshiyad hubaysan oo dhinaca Hargeysa laga soo daabulay ay weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda deegaanka Soomaalida oo aagaasi ku sugnaa oo markaasi aan tiro badan isla markaana aan ka warqabin in goobtu ay markaasi ciidamo ay ku soo wajaheen si gaba ayay weerar ugu qaadeen dhimasho badan iyo dhaawac ayayna u geysteen ciidankii nabadgelyada ee dowladda deegaanka Soomaalida waa ciidanka new booliska loo yaqaano ee aagaasi ku sugnaa waliba ciidan staff ayay ahaayeen oo tiro yar oo mas'uuliin staff u ahaa kadib dagaal kale ayaa halkaasi ka qarxay waa kan ogsoonayn maalmo ka hor ayuu dagaalkaasi dhacay labadii maalin ee ugu dambeeyay wax dagaal halkaasi kama dhicin saaka ayay ciidanka amniga ee dowladda deegaanka Soomaalida ay gabi ahaanba soo afjareen kooxihii argagixisada ee halkaasi waayihii ugu dambeeyay baa dhaqaaqyada ka waday khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ayaa loo geystay muuqaalada ugu horeeyay ee naga soo gaaray baraha bulshada lagu baahiyay ayaana tusinayay iyagoo gawaaridii ay wateen oo waliba taariikhda Somaliland ay ku xidhan tahay gacanta lagaga soo dhigay gawaarida laga soo qabtay ilaa 4-5 gaari ayaa hadda si toos loo xaqiijiyay in ciidanka deegaanku ay gacanta ku hayaan waxaa sidoo kale gacanta lagu hayaa maleeshiyadkii hubaysnaa qaybo badan oo ka mid ah oo dhaawac iyo nololba ama badqaba gacanta lagu dhigay oo ciidanka new booliska ay gacanta ku dhigeen dadka la qabtay waxaa ka mid ah odayaashii lafdhabarta u ahaa abaabulka maleeshiyadka lagu abaabulahayay gudaha dowladda deegaanka Soomaalida oo asal ahaan laakiin ka soo jeeda dhinaca Somaliland ama gaar ahaan hadda si toos ay ugu dhigo beelahaysa odayaal waaweyn oo dhinacna nabad baan ka wadnaa lahaa dhinacna colaada ka hurinayay ayay ciidanka new booliska ay gacanta ku dhigeen gaadiidka gacanta lagu dhigay wax yar aynu wada daawano waka gaarigii horreey kii labaadna waa ka taariikhda Soomaaliland wata taariikhda Soomaaliland waan jeedaan taariikhda Soomaaliland ayaa ku xidhan gawaarida la qabtay waa kuwan 1 2 3 4 afarta gaari waa xaqiiqo walow dad badan oo la xiriiray ay xaqiijeen ilaa 5 gaari in gacanta lagu hayo gawaaridaas aad u jeedaan qaar kamid ah waxa watay odayaasha dagaalka abaabulahayay ee Hargeysa Burco iyo Berbera ka imaaday inay colaad ka ridaan gudaha dowladda deegaanka Soomaalida ee maleeshiyadka argagixisada meesha ku abaabulay waan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale eegi doonaa khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca sida hordhaca noo soo gaaray ayaan iyadana idin la wadaagi doonaa iyo gacan ku haynta deegaanka Dawcaaley iyo weerarkii maanta bilowday dagaalka hadda halka uu ka socdo iyo halka ay ku dambeeyeen kooxaha argagixisada ayaan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay dagaal culus ayaa saaka ka dhacay deegaanka Dawcaaley oo ka tirsan degmada Xarshin gobolka Faafan ee dowladda deegaanka Soomaalida oo maalmihii ugu dambeeyayba dagaalo goosgoosa ay halkaasi ku dhaxmarayeen ciidanka new booliska iyo ciidamo sanadihii ugu dambeeyayba halkaasi lagu abaabulayay oo intooda badan laga soo gudubiyay dhinaca Somaliland beelaha isaaq ayaa halkaasi ciidamo ku abaabulahayay ujeedkooda aan la garanaynin isla markaana khalkhal iyo amni darro ka abuuray deegaan nabadgelyo ah oo deegaanka Soomaalida ka tirsan dagaaladii hore waan ogsoonayn khasaaraha iyo dhibaatada ka dhalatay laakiin dagaalkan maanta dhacay waa uu ka duwan yahay kuwii hore iyaga ayaa weerarka soo qaadayo dagaalo gaadma ayay u badnaayeen marka laga reebo dagaal hal maalin dhacay oo 2 maalin ka hor deegaanka Dawcaaley ka dhacay oo jab xoog loogu geystay kooxahaasi argagixisada deegaanka lagu abaabulay dagaalkan saaka waxa qaaday ciidanka new booliska ayaa saf ballaaran ku galay waxaana gabi ahaanba cagta la mariyay maleeshiyadkii halkaasi lagu abaabulayay dhinaca Somaliland xadka ayay ka tallaabeen qaybtoodii hadhay halka qaybtii kalena wax la dilo wax la qabto laga dhigay ciidanka new boolisku waxa ay sheegeen inay gacanta ku hayaan maleeshiyad tiro badan iyo sidoo kale waliba horjoogayaashii abaabulahayay ciidankan argagixisada odayaal waaweyn ayaa gacanta lagu hayaa oo waliba dhalasho ahaan ka soo jeeda dhinaca Somaliland oo deegaanka Soomaalida aaban ka tirsanaynba odayaashu waxa ay wateen gawaarida qaar kamid ah la qabtay bay wateen ee hartoobyada waana gawaaridii ay abaabulka iyo colaadda ay ku sameeyeen dhalinyarada ay ku abaabulahayeen ciidanka new booliska ayaa saaka u suurta gashay inay gabi ahaanba soo gabagabeeyaan odayaashii laf dhabarta u ahaana
ay gacanta ku dhigaan deegaanka Dawacali waxaa ku sugan ciidanka New Police oo hadda ku sugan gabi ahaanba cagta ayay mariyeen maleeshiyaadkii halkaas ku sugnaa waxaa la xaqiijiyay tiro aan badnayn oo waliba gaadiidka dagaal wata inay ka gudbeen xadka oo dhinaca Somaliland ay u gudbeen degmada Galdogob waxaa dhahnay bali gubadile waxaa la geeyay ilaa iyo 12 dhaawac ayaa la geeyay waliba dhaawacyo halisa ayay geeyeen oo dhinaca maleeshiyaadkan ay la carareen dhaawacyo kale ayaa la xaqiijiyay inay wadada ay ku sii jiraan oo saacadahan ay la hadlayo ay gaari karaan degmadaasi dhaawacyada halkaas ayay ugu dambeeyayba ku urursan hayeen dagaalku wali waa socdaa oo ma istaagin oo waxaa socda hawlgalka sifaynta argagixisada deegaanka Soomaalida laga sifaynayo waa hawlgal caadi aan ahayn oo lagu sugayo amniga gudaha dawladda deegaanka Soomaalida ma aha hawlgal qabiil uu soo abaabushay sida iyagu ay u dhigayaan ma aha hawlgal qabiil gaar ah loogu jeeday waa hawlgal lagu sifaynayo argagixisada soo gashay gudaha dawladda deegaanka Soomaalida ee amni darrada abuurayso sida ay ba xaqiijiyeen madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida hoggaanka nabadgelyada iyo taliyaha guud ee ciidanka New Police ee dawladda deegaanka Soomaalida hawlgalkii marka saaka ee sifaynta iyo soo celinta ama kala dambeynta sharciga lagu sugahayay guul weyn oo taariikhi ah ayay ciidanka New Police ay halkaasi ka soo hoyeen walina hawlgalkii waa socdaa oo dagaalku waa socdaa maleeshiyaad kala soo qabtay tiradooda dib ayaan idinka soo sheegi doonaa oo laamaha amniga ayaa waxa ay sheegeen inay soo ururin ay ku jiraan dhimashada iyo dhaawaca naftirkeeda dib ayaa laga ogaan doonaa oo muuqaaladu maanta si isdaba joog ayaa xogihii soo kordho aan idinula wadaagi doonaa oo idinku soo gudbin doonaa haddii alla idmo dib haddaan ugu yara noqono ciidanka New Police waxaad arkayseen maalmihii ugu dambeeyayba iyagoo meydadkooda la jiijiidayo oo la leeyahay maxaa ka soo horeeyay ogaadeen oo maxaa ka soo horeeyay la leeyahay waa ciidan deegaan waa ciidan qof walba uu ku jiro waa ciidan qabiil walba ilaalinaya oo amnigooda u taagnaa way ciidanka la jiijiiday waa dhalinyaradii istaafka u ahayd mas'uuliyiintii la laayay ee sida gaadmada lagu laayay mas'uuliyiinta nabadeyn bay u socdeen beeraha halkaas isku haystay nabadeyn ugu socdeen iyagii nabadeynta u socday iyo odayaashii horkacayay baa ciidan ku dalbaday oo yiri soo gala ayaga odayaashaan hoostu way ka hoos baxeen mas'uuliyiintii iyo istaafkii baa halkii lagu laayay ha lagu laayay meydkii ayay ku tumanayaan oo ay ku xadgudbeen oo waliba ay jiijidayeen maalmo dhan bay jiijidayeen meydka waa meydka ciidan New Police way meydkiisa waxay jiijidayeen marka New Police baan meel cid la iskaga laynaya meydkiisaan ku tuuldaantaynaya oo jiijidaya nabad baan haddana ku joogaya oo abaabul baan sii wadaya oo Dawacali ana joogay hebel baan joogay hebel ana joogay baa inta la soo istaagaya dee waad ka garan kartaa inay suurtagal ahayn deegaanka Soomaalidu ciidan waxay haystaan amnigiisa sugay oo aan loo gali karin xaqiiqada markii laga hadlo faana maaha ciidankan kun askari oo argagixisa oo soo galay meel shalan qowtiya ama gol waxa loo yaqaano ama farqo ama tog waxa uu taqaanaba soo galay oo buurihii dhinacyada ay ka xigaan oo dhulku qalqasho u yahay waa ciidanka 4 maalmood oo gudahood waxay dilaan